reerka xagee loo guuriyaa waaye maanta qaanuun iyo dastuurkii 4 bilood doorasho ay ka dhiman tahay aan ku xalinaynaa kaliya howl sahlan arrinta doorashada waa ka hadlay laakiin waa hor taagan tahay mushkilad haday ku hor taagan tahay xalay rabtaaye inaad ka sii jeesatid xalkeeda ma aha hadaa inta u sii jeesatid haddana way ka hor imaanay mushkiladu waa taagan tahay qadiyadda doorashada ee 2020 oo soo muuqda muxuu ahaaye meeshay ay ku ekeeday ka hadliday mudan tahay xalay mudan tahay qof iyo hal institution oo dawladdu leedahayna maxalli karin shalay institutions xadidan oo dawladdu leedahay xalli karin oo isku keeni karay oo maxaan ku sharciga meel mari karay oo dhulka uu si gogol xaari karay oo diyaari karay muxuu ahaa jawi muxuu ahaa saxa maanta waa ka timid jawigii ma dhinno jawigii ma dhinno wixii lagu maamaaji jiro guda qarsi dhamaan la dhihi jiro waaye guda qarsi waa dhamaaday hadda waa in xaajada laga tashadaa dadka wakiilka ka ah dadka wakiilka ka ah oo ayagu ay siiyeen mandate-ka ama ikmadeen waa inay ka hadlaan waa in la ogolaadaa odaga reerka u weyna odagii isku keeni lahayd muxuu ahay qoyska dhihi lahay haye bal aan hadalna reerka xagee loo guuriyaa waaye maanta qaanuun iyo dastuurkii 4 bilood doorasho ay ka dhiman tahay aan ku xalinaynaa kaliya howl sahlan ma aha qaanuunaa la dejiyey wax yaryaraa ka dhimanoon rajaynayno baryaha soo socda in la dhammaystiro in la dhaqan geliyaa qaanuunkii waqti dheer u baahnayd waa dhib badan tahay laakiin haddana dadka hadday isku yimaadaan oo lagu heshiiyo la yidhaha qaanuunkaan dhaqan gelinaynaa maxaan ka dhaqan gelin karnaa a b c aan ka dhaqan gelin karnaa d iyo e f ba ka dhaqan gelin karnaa dib waa talo meel noo dhiga ee walax kale aan aadno waa talo laakiin sidaan annagoo gacmo isugu kaan saaran yihiinoo u taagan sida aan usii soconno usii hadaafayno haddii aan qarkii ku tagno ma qarkaan ka dhacayna lama yaqaano waxa dhacayo bisha November iyo October inay doorasho dhacday ahayd December baarlamaan inuu joogay ahayd January diyaar garow in la galay ahayd February 8 madaxweynaha in la doortay ahayd haddii intaasi waxa aan rabnaa ay dhici waayaan wax aan soo 20 sano la soo dhaafay waxaan soo aragnay maaha ma naqaano hadda ka hor wallahi nagu dhacday oo termka inta iska dhamaaday ayna waxba la qabanin yaa saanaana loo gudba si aan dhahno ma naqaano termadu marmarka qaarkood waa dhibaatay lahayn waa dhib badnaa jireen maareyntooda waa dhib xilliga kala guurka maareyntiisu mar walba waa dhib badnaa jirtay laakiin ama doorashaa dhacayso waa loo jeeday doorashaa socotay ama jidkay ku soo jirtay baarlamaanka bedeli lahay waa joogay markuu waqtigiisa dhacay ama jidku ku soo jiro waa soo muuqdo waa ka soo socda waa yimid la dhahay madaxweynihii bedeli lahay waa joogay ama waa soo muuqday sidaas oo kale maalintaas la doona xilligiisa waa sidaas la dhahay intiiba lama doorasho ma dhacay mise ma dhacaysa su'aal ka taagan tahay doorasho ma dhacay mise ma dhacayso yaa su'aashu taagan tahay say u taalaa iyo intay ka dhacay iyo yaa maamulaayo iyo waxaasoo dhan waa su'aalo aan jawaab loo haynin lana gaarin waayo balkii horta albaabkiiba ma furno albaabka in la furo mudana madaxweyne albaabka fur adaa reerka oday u ah isku jiriyaan leenahay haddaa isku jiro weydid oo doorkaas dastuuriga ood leedahay aad qaadan weydid Soomaaliya iyo dadka siyaasiyiin meel inta gacanta la isa saarto la fariisan maayo shaqaa la qabanaa waa la ordaa wadadii saxdeed hal aada ama wada lagu habaabayo hal aade laakiin la fadhi maayo dadku fadhi maayaan madaxweynaha waa ugu celinaynaa mandate-kaada inta ka dhiman xor madaxweynaha tahay talaad leedahay laakiin maalintuu mandate-ku dhammaado haddaad si fiican oo leegsigaaga qurxoon uga turjumaysa aad u diyaari weydid dadku inta tashaday wax samaynayaan madaxweyne talada dalka ee lagu aaminay lagu dhiibay ilaahay hortiisa oo kutubka jaamacadda gacanta u saartay ka soo bax waajibkaadii gudo tahdiid iyo caay iyo aflagaad iyo annaga siyaasiyiin aan nahay haddaan beri dalka usoo tali jirnay maanta uma talino laakiin siyaasiyiin jooga waayo aragnimo leh aqoon leh faham leh aaminsan inay wax badan ku kordhi karaan ma rabno dalkan inuu dib u rimcado ma rabno colaad inay dhacdo ma rabno qaabdarra inay timaado ma rabno isjijiid inuu yimaado horay in loo socdaan rabnaa lianna waqtigaa naga dhumaayo 30 sanaan maruu haynaa waqti dheer waay 30 sano cumriga
ummadaha kuma dheera laakiin cumriga dadku waa ku dheeriya dadka intay joogaanna wax fiican inay arkaanay rabaan marka waxaan leeyahay madaxweyne waqti aan ugu socdo weliba madaxweynaha waxaan rabaa si waqtigu qofka ku socdo weliba madaxweynuhu waa asaga dowlad goboleedyadan shalay la soo wada doortay waqti kuma socdo weli ayo meel uu nooga dhaca maba lihin mogtahay adoo waqti ka dhamaanaya choice-kana adaa iska leh choice-kood qaadatana uu leeyahay sharaf iyo karaamo adoo leh oo dalkaagii meeshii iyo waajibka ku saartay si fiican uga gudbay ayaa waqtigaagii dhammaana ama ayadoo leesjiijiiday loo asaa noolahay lagu yiraahdo weligaa lagaa sii muxuu waxeeyo taariikhda Soomaaliya marka la soo sheegabo maalintaas dhibkii dhacayaa lahay ninka odagaasaa muxuu ahay mas'uulka ahayoo lahaayo dalka badbaadiyo marka adaa iska leh kala dooro annaguna waxaan diyaar u nahay waxa danta Soomaaliyeed ah haddaad keento inaan kaala shaqeyno lagugu hakra maayo lagugu deymaayo laakiin wixii dandarro ah lagaaga aamusi maayo wixii gaf ah lagaaga aamusi maayo waxaan qaanuunka iyo sharciga iyo dastuurka yarkaan ku heshiina aan u qabin lagaaga aamusi maayo lagaagana xishoo maayo runta siday tahay lagu sheega runta ragga kama dhicisaan la dhihi jiray waa rajaynaynaa inayna kaa nixin marka arrinta doorashadu waa arrin taagan welina waa gacan calool ku jirta lama yaqaano waxaa ka soo bixi doona ilaa yowmana haada oo aan leenahay way soo muuqataa meeshii maratoonka uu ku dhammaanayo orodka maratoonka haddii lasoo ordo qofka ugu soo horeyso meelo xariga ku gooyaa soo maaha xarig yaa soo muuqda oo